بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قفك إلى الله ولكن علي معه شريف وأنا محل قدوميها مقالة عندنا إسبيا حتى وحن تاجنا هاي فوينك أما جاليدا أما مساجدك مقالة عندنا إسبيا ومقالة مساجد كلي عن هاي سنة وصومال إسكالة هاي لكن أفرنت هاي أمد المسلمين تطلن ملوا بدون كي إمادن ما أنت واحد يدعي فرديا دور أضيال أو مقالة ما شاء الله أو مهم كأه aan waxaan inaan wareysto dhowr su'aal inaan wadiyo qofku aan ku bilaabo waxa waaye qadar roob la dhinaciga fadhiyo qadar waxaan wadinayaa qadarow masaajidkan ama majaalidan Soomaalida marka imaadid 20 sano iyo 25 sano ka badan oo jira waxyaalaha aad u imaadid kow maxaa kamid bismillah waxaan halkan ka hadlay qadar roob la xirsi muhiimadda ay jaaliyadan loo leedahay waa wax macruuf oo la iska wadoogiyo marka hore waxa weeyaan waa meel ay isku timaado Soomaalidu oo ka helayso dhaqankii Soomaaliyeed oo dhan oo ah way diinteenu iyo dhaqankeenu isma diidayaan taas waa ta ugu koowaad talabaad waa jaaliyada kaliya ah aan rasiista amba cusurnimo aanay ku jirin ee cid waliba isku timaado haday noqoto ay muslim amba ay jinsiyad muslim sheeganaysa bal xitaa ayna soo siyaartaan marmarka qaarkood dadka dalka degan ee Deenishka haday noqoto dhalinyaro iyo haday noqoto maxaa ay odayalba waa meesha kaliya aanad ku dareemeyn waxa la yiraahdo midab takoor waa meesha kaliya xitaa Soomaalidu aanay is cusreyn ee Soomaalidu ka wada jirto marka waa meel aad iyo aad u fiican inkastoo lagu magaalada lagu yara xiriiriyo xagga fogaanshaha laakiin waa magaalo wax walba aad ka heli karto jinsiyad kastoo muslim aad ka heli karto la isugu yimaado saasaanu ka helnaa intaasi ku wanaagsan magaalada qaro su'aalan ku dinan insha Allah su'aashu waxa waaye sanadkii hore 2019 bishii October dhamaadkiisa waxaan raynay shahaado sharaf aan raynay masaajidkeena marka maxaad u malaysaa sababta ay ku noqotay in anaga aan rayno se ku noqotay muhiimadda waa la dareemayo waayo jaaliyadaha kale dadka kale ee ajnabiga uma adeegan laakiin inagu waxaynu kaga duwanay haday turjubaan noqoto haday mucaawino noqoto haday wax kasta noqoto haday aasin noqoto dadka la aasayo waa meesha kaliya lagu soo hirto sidaas marka aan uga fiicnaanay jaaliyadaha kale oo ku kasbanay inaanu helo shahaadad iyo lacag 10 kun oo gaarsa taasay xitaa noo qareen dhaanashkuna inaynu ugu horeyna jaaliyadaha ما شاء الله انت سوحد هذلك قدر الروب ان شاء الله تعالى دنعي ميتم waxaa fadhiya Cusmaan Abubakar in sha Allah taala oo asan kamid ah odayaasha magaalada oo activity-ga dhaqdhaqaaqa oo aad nagu caabiyo marka Cusmaan Abubakar waxaan ku dinayaa sharaf aan helnay 2019 kaas oo alxamdulillah rabbil ilaah noo fududeeyay oo ay noqotay SBA jaalida ugu horeysay ee raysay marka adiga maxaad u malaysaa maxay sida kula muuqataa aan ku raynay sababaha keenayso بسم الله الرحمن الرحيم waxaan horta ummad Soomaaliyeed oo salaamay meel ka soo joogto waxaan ku helay oo ku guuleysan oo aan sharaftaas ku helnay qiimaha inta leeg sida aan caruurta u caawino sida aan dadka ajaanibka yimaada magaalada cusub aan uga caawino magaalada haday noqoto luqado haday noqoto magaalada la tuso iyo sida kaliya ummadda isku mid u tahay ama ay wada leeyihiin masjidka una ahayn mid qolo kaliya leedahay ee tahay mid muslimiinta oo dhami ay wada leeyihiin anay ku soo wada hirtaan oo qof laga xigsanaya una jirin oo kulligayo aanu simanahay waxa laga qabanayo iyo waxa loo qabanayo marka sababta ayaa kalitay in ciyaalka looga caawiyo lagtarka qof kasta oo yimaada maada kasto ku adagna looga caawiyo oo lagu keeno macallimiin taas ayaa ka sabtay inaan noqono kuwa ugu fiican waxaan rabaa inaan su'aasha ugu dambeeyay aan ku weydiin insha Allah taala marka aad jaalida imaanaysid dareenka aad dareemaysid maxaa way isha dareenka dareemay waxay tahay waa meesha kaliya ku soo higto anigoo haraadan baan u imaadaa ummadda waayo waxaan ku qaatay waxaan meesha kaliya aqoonteeda ku ilaalino ilmaha iyaga ku ilaalino diintooda iyo quraankooda iyo dhaqankooda waa meesha kaliya ku ilaashano saas ay u kaliftay inaan mar walba aan nimaadno markaan imaanana aan u soo hilowno oo aan qas nimaadno جزاك الله خير هذا كسوحة أنت عثمان أبو بكر إن شاء الله تعالى هذا وحن هذا ورجنا يا علي أحمد إن شاء الله تعالى علي أحمد وحرر إن وديو أضياش إن مقالة أو يرانتين إلها درتن أو نسوع عون جري أو هول كفوتبول أكتيفيتيز كفوتبول نعس نقع عون جري سؤال أن ودنا حوالي علي مركب مساعد كمجالد مادد وحيالها أذيك هدي عن جالد عن لهان لهن مانتا عن هيسل لهن سيدي حال النقلات
horta dee su-aashaas horta haddaan su-aashaa ka jawaabo horta waan salaamaya dadka daawanaya klibkan oo dhan waan salaamaya meel walbay joogaan haddaan su-aasha ka jawaabo uu weydiiyey guddoomiyaha masaajidkeenna ama fooyninkeenna ama jaaliyadeennaba waxa weeye su-aashii waa wiiloobay igu soo celis waxaan dhahay su-aasha waxa waaye haddii jaalid aan haysan lahayn oo meel aan isku imaadan haysan lahayn sidee aad maxaa u malaysay in xaaladda muslimiinta Soomaalida inay noqon lahayd may waxa weeye haddii aanan horta aanu ahaan lahayn meel jaaliyada aanu isugu nimaano taas horta dhib weyn baa jiri lahaa oo ah dadkii markaa waxa weeye way kala daadsanaan lahaayeen oo markaa dee dad midaysan lama heleen hadda laakiin waxa weeye jaaliyadu dadkay midaynaysaa qofkii dhibaataysan dee dhibkiisa markaas iyada wax ka qabanayso hadday noqoto ama problemka caadiga ah qofka hadduu xanuunsan yahay oo kale dee ama hadduu rabo qofka waddanka inuu noqdo wax alaale wixii problem qofka la soo darsaa ayay ka caawinaysaa jaaliyada marka dee haddaysan jaaliyad aanu lahaan lahayn waxaan u maleynayaa dee waxay ahaan lahayd problem weyn oo dadku dee qof walba meel cidlah ayuu dee isaga baabi'i lahaa oo isaga basbeeli lahaa marka laakiin jaaliyadu dadkay midaynaysaa marka taas ayaa faa'iido ugu weyn ay tahay su-aasha ugu dambeeya Sheekh Cali adiga ahaan maxay kula tahay sababaha keenay in masaajidkan Soomaaliska kultuwa fooyning SBA in ay raayeen shahaado sharaf adiga ahaan sababta keeni karto maxay kula tahay anigu markaan hadda aan qiyaaso waxaan u malaynayaa oo aan isleeyahay way tahay waxa weeye dadka guddiga masaajidka ka ah fooyninkeena oo dad active ah iyaga oo markaa mideeya Soomaalida haddana ku dara jaaliyadaha kale in markaa iyagana dee sida wax loo qabtaa inay markaa tusaan taasaa markaa anigaan isleeyahay way ugu horraysaa isdhexgalka bulshada oo dee kaalin fiican ay ka galeen taas ayaan qiyaasayaa inay 100% ay tahay sababta aanu ku helnay shahaadada ama dee shahaado sharaftaasi toole sanadkii la soo dhaafay marka muhiimadda aad ugu weyn waxa weeye dadka guddiga ka ah fooyninkeena oo dad active ah oo wax fahamsan oo markaa isku targaraya sidii qof walba loo caawin lahaa wuxuu doonaa ahaado dadka cusub ee waddanka magaaladeena yimaada SBA nationality kasta ha ahaadaan baahida ay qabaan inay markaa wax ka qabtaan oo markaa ay caawiyaan tan Soomaalidana dee waaba dee tan ugu horreysa dee culayska ay saaraan laakiin waxay ku sii daraan in dadka kale ee cusubna iyagana ay caawiyaan taasaa markaa ay noo qareen dadka dee kumuunaha magaalada inaanu nahay dadka caawiya oo dee social ah oo cid walba dee ay isugu mid yihiin marka taasaa markaa baan u dheernay fooynada kale aanu kaga guulaysanay iyagoo ay jiraan fooynada Turkidiin iyo kuwa Bosniyaana haddana waxaan tan ugu fiican waana taa dadka midaysa جزاك الله خير علي أحمد إن شاء الله تعالى أنت هذا أدم معن ونوشة إن شاء الله تعالى هذا وحير أن قدر أنا إن شاء الله وأنا سلاي هاي سببها أن كراين وحوي جاليدنا المساجد كنا وفرنتها أمده دن حتى كمونه وفرنتها كمونه سدح دي بال أملح دي بال ونصوع عن وحدها حتى سلا جمعة ربنا إنا إيمانه وأفرنا وح عن كقرن ملهن وبوك فرن واي مركب دعتها هاي وحيد أن أكل فرتد هذا دب مركز إن شاء الله تعالى وحاسة أن أملا أنا كنتي إن أنا ضد فرفرن ومدك عاونayaan meel ba ka imaadeen oo waxaan u sameeynaa mataqana inay meesh mataqana iska furnaato oo wax meel lagu qarqariyo aan jirin insha Allah taala intaas wacid walaalkiina cali muco shariif meel ba ka imaadeen waa in salaam insha Allah taala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وسأركيسان مانتو وجمعة واي جمعة ما كان دكانو صلاة جمعة كدبنا وحلينها بيان المها دنيرتا أودياشة كل وين مادان وحر والس وعديا كدب وعدي كدبنا المها وعياران مصارع إسك عياران وحي عياران فانجلاي وعربي صومالي أفريقاني إيش بروم ملو والبكي مادان واحد ملهن ماشى إسكاجا باشان الحمد لله رب العالمين وماشى الإسكاجا سارة استرسكا وماشى كلسكو أوجانايو ومدول بمشى حال دو ماشى مريسو خفي ماشى لجوايو سوته مش أمغنيا هاي محنون سنيا هاي مجرين yahay ma safarku maqan yahay waxaas dhan waa meesha aan ku ogaano waa adiga dan soo gaabiyo waa dawlad yar waa dawlad socoto oo qof walba dhinaciisa la socdo qof walba xaaladiisa marxaladiisa meeshu maray la soconayo alxamdulillah rabbil alamin waa maan jamcaha meelaha marayno alxamdulillah rabbil alamin hadan mardhow waxaan tusayaa shahaado sharaftii aan helnay insha Allah taala ila socda
haddana waxaan soo galnay qolka oo odayaasha ay ku baashaalaan laakiin maanta jimco markay tahay dhalinyarta intay imaadaan darsi qur-aanka ku diyaariyaan tafsiirka qur-aanka waxay ku diyaariyaan waxyaalaha kale mataqaana oo ay u baahan yihiin tafsiir ha ahaado qur-aan ha ahaado xadiis ha ahaado iyo hoolahaas ay ku qabtaan insha allah tacaala haddana waxaan sii gelaynaa albaabkan gudaha markaysii galno xafiiska masaajidkan gelaynaa waxaan helaynaa shahaado sharafka oo anaga aan rayn insha allah tacaala ila soco sida hadda arkaysaan gacanteeda waxaan ku hayaa shahaado sharafka oo duqa magaalada oo na siiyey 2018 bishii November adiga waa iska dhamaadkii 2019 marka la galayay ku qoran Soomaaliska full of school of training inaan nala siiyey shahaado sharafka magaalada SBA oo ku saabsan integrationka iyo flutninga iyo invandaqa yani sidaan u caawino iyo howlaha sidaan aan u kasbano marka dhinacayna waxaa fadhiya Cusmaan Abukar asna oo noo hayo shaygan san u weyn oo ku qoran 10,000 oo kron ay na siiyeen si aan hooshii iyo wanaagii aan wadnay si aan usii kici lahayn insha Allah tacaala Cusmaan berigan aan 10,000 aan qaadanaynay adiga waa joogtay berigaas maxaad dareentay bismillaah raxmaani waxaan dareemay farxad aad u weyn baan dareemay waayo sababtoo maadaama aan foolnadii magaalada dhan ka guulaysanay waxaan dareemay farxad aad u weyn oo aan soo koobi karin waxaan kasbanayna wey oon qabsanay oo aan dadka kaga dheeraanay inaan kaga fiicnaano weeyaan waa hadalkaas waa sax maalinta aan raynay shahaad sharafkan iyo ilaa hadartan waxaan ku hool jirnaa in aan sanad kastaba inaan heli karno inaan rayno shahaad sharaf oo anaga noo tahay sharaf oo khaasatan anagoo nahay Soomaali oo wadankan degannahay Denmark in aan shahaad sharaf aan helno si aan u guuleysano si aan awlaadeena iyo dadkeena kale aan u noqono maxalla tusaale oo weyn ay ummadda idaba raacaan insha Allah tacaala meel baajitaan waa idin salaamnay anagoo walaalkiina Cali Maco Shariif gudoomiyaha magaalada SBA iyo kaamiristaha noo haya Yusuf Ali Umar iyo Cusmaan Abukar iyo dhinacii kale fadhiyo Isaaq laga sii wuxushad badan yahay wajaakumullahu khayr wa ma santihiin aad na soo martaqaadeen award idinka ilaahay barakeeyo meel baajitaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh